الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحدا انتي هوري لو تريو دمان أنا لو ذاقا نقول بمقعيسي مقام كيسة مدحوينياشا قدوميها قبلك قدوميها دقموينك قدومي لبضا أقل بارلمانكا فدرالك سومالي بارلمانك هيرشابيلة دمان مدحدا يبولشada reer cadale rag iyo dumar iyo dhalinyaro siday u leeyihiin dhammaan waa idin salaamaya salaanka gadaal sida hore madaxdu ugu sheegtay maanta waa annaguna farxad ay noo tahay inaan idin soo booqanno oo aan nimaado cadale dadka ku nool iyo deegaanka noloshooda sida ay tahay si aan xogogaal ugu noqonno oo aan wax nalooga sheegay bas aanay u noqonine aan aragno dadkeedana aan dhegaysanno ayay ahayd sida madaxweyne shariif sheegay fariimaha qaarkood shir waaba la soo gudbiyey laakiin waxay u baahneed in la iska warsado waana la iska warsaa waxaanan rabnaa dadku wax kasta oo tabasho ah meel dalku horta iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta jooga waa wada tabasho meel lagu tabasharayo ay ma jirto marka walaalaha waa la iswarsanayaa wixii maanta la xalin karana maanta la xalinayaa wixii berri in la xaliyo u baahanna berraan u dhigan doonaa dadkan dhaxdiisa in wax nooga maqan yihiin wax duur jira ma aha sida loo sheegay waa ku mahadsantihiin waa aad iyo aad ayaan muxuu ahay baryahan oo dhanna ayaa howlahaas loogu mashquulsanaa oo sida madaxweynuhu sheegay dad badana muxuu ahay aaraa iyo afkaar ka soo gudbiyey waana ilaahay idinkiisa heshiis iyo nabad iyo maxaan ku rabaa dadka degmada cadale waa la sheegay degmo taariikhi ah waaye dadkeeduna taariikhdaasay la leeyihiin degmada dhulka iyo geedaha iyo darbiyada ma laha taariikhda dadaa leh taariikhda dadka degmada cadala degan ayaana taariikhdaas leh taariikh qadiimi oo xadaari ah dadku hadday leeyihiin ayagana waxaa laga rabaa inay dee uun dhaqankaas dawladnimo ee qadiimiga xadaariga inay la yimaadaan oo dhexdoodu ay isqaataan oo ay is-aqbalaan oo ay maxaan ku idhahdaa gacmaha isqabsadaan oo horta ciyaaya loo celidhaamiyaa bal horta waxay ayagu qabsan karaan inay qabsadaan degmadaan aniga hadda ka horna maraan imid haddana masaaka maanta baabuurka intii yarada ku soo dhex maray waxaa ii muuqanaya wax badan oo dadka reer cadale ay horta qabsan karaan waxa ku xigadeen dawladda muxuu ahaay hirshabeelle ayaa laga rabaa waxa ka sii weyn oo ka dambeeyana dawladda muxuu ahaay federaalka oo heer qaran ah laga rabaa fariintiina waa aragnay noloshiina waa idinla wadaagi doonaa waa idin dhegaysan doonaa meeshii tilmaam gashana wixii meel jirana waa tilmaami doonaa wixii maanta la xallin karana sida loo xallinayaan ra'yi yaa un laga yeelan doonaa wixii berri in la xalliyo ay ku habboon tahayna waa ka ballamaynaa iyadana haddii alla yidhaa dhib ma jiro aad iyo aad ayaan aniguna ula wadaagayaa mahadcelintii madaxweyne shariif oo yidhi madaxweynaha muxuu ah dowlad goboleedka hirshabeelle iyo madaxda mas'uuliyiinta dowlad goboleedka oo dhan iyo gobolka shabeellada dhexe dhammaan mar kale waa u mahadcelinaynaa dadaalka badan ayagoo duruufahooda ay adag yihiin oo cadow meel walba ka taagan yahay oo maxaan ku idhahdaa caasimaddii fatahaad iyo biyo iyo muxuu ahay mashaakilaadkeeda dhan ay ku hareeraysan yihiin haddana inay wakhti badan noo hureen oo ay halkaan nooga soo hormareen naguna soo dhoweeyeen waxaan leenahay qadarin weyn waaye waa mahadsan yihiin dadka reer cadalane waa mahadsan yihiin qaraabadu shiribka farriimo badan ay isugu gudbisaaye waa farriimo waa sida madaxweynaha u sheegay waa la maqlay waana la qaatay ilaahay idinkiis laakiin waxaan rabnaa deganaanshiyo isu dulqaad isdhegaysi yaan rabnaa inaan wax walba aan ku xallinno ilaahay idinkiis horena waa ugu soo caalamaallay waa ku soo xallinnay soomaaliya oo dhammaana u baahan dulqaad iyo isqadarin iyo isdhegaysigaas in lagu xalliyo marka ku xallin waay karmayno insha allahu tacaala degmada cadala iyo dadkeeda wixii ay tabanayaan camal walaal camankow galaa carabkaana looga bixiyaa la yidhi marka carabkii waa la wada hadlaya haddii alla yidhaa insha allah dhib kale ma jiro mar kalean u mahad celinayaa ciidamada geesiyiinta ah ee maxaan ku idhahdaa ciidamada qalabka sida ee maxaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada amniga ee maxaan ku idhahdaa dowlad goboleedka Soomaaliya hirshabeelle intaba waa u mahad celinayaa waxaan uga tacsiyeynayaa wixii ayaga oo dalka xoreynaya ku geeriyooday waa geesiyaal waa shuhada waana loo abaal gudi doonaa haddii alla yidhaa idinkuna maalin iyo nolol qurxoon oo aad dadka u horseedaan adinkana aad dhinacin uga noolaa doontaa iyo karaamo haddii dalkaani khataro badan uu ku jirana waa ka soo badbaadiseen nooc walba leh maantana waxaa u taagantihiin tii cadowgaas ahayd waana u wada dhannahay ilaa idinkiis mar kale reer hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan reer cadale waa mahadsan yihiin tabashada yartaa oo cadale laga sheegay kuwa ka waaweynaa meelo kaloo badan oo hirshabeelle ka jire
ayagana waa loo taagan yahay waa la sidaan inta u nimadayaan meel kastoo Hirshabeelle intaan tagno oon dadkeeda dhageysanaa wixii maxaa wax ka qabad lana yaan ka qaban doonaa wixii ra'yi waayo aragnimo odaytinimo aan ku kordhin doonaa haddii la yiraahdo dadkeenuna waa aad iyo aad aan aaminsan inay noo dhaga nugul yihiin oo wixii aan talo aan keenno ay naga aqbali doonaan annay qaadan doonaan haddii la yiraahdo mar kale aad iyo aad u maasantiin khayr badan waa isla joognaa waa sheekaysanaynaa waana kala warbagaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh